nabad idil ahaantiinba daawadayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa lamaanada ah oo si lama filaan ah Instagram-ka caan uga noqday hase ahaatee intaynaan u guda gelin haddii aad ku cusub tahay channel-kan fadlan subscribe noo saar si aad mar walba noola socotid. lamaanahan da'da ayaa waxay sheegeen inaysan marnaba ku fakerin iyagoo da' ah duqnimana ku jira inay sawirkooda sidan loo xiisayn doono sida laba qof oo dhalinyaro ah oo dhoola cadeynaya isla mar ahaantaana siyaabo kala duwan ah ayay sawirada cajiibka u galaan waxayna lamaanahan caan ku yihiin sawirro ku habboon xayeysiiska goobaha dharka lagu dhaqo iyagoo labiskooduna yahay mid iska caadi ah. muddo 70 sano ah waxay dhar ku meeri jireen doobi ku yaala magaalada Tanjin iyaga ayaana iska leh doobigaasi ay dharka ku dhaqaan. dad badan ayaa dharka ay u keeneen si loogu dhaqo uga tagay doobiga. haddaba wiil ay lamaanahaasi dhaleen oo lagu magacaabo Reef Jang wuxuu u soo jeediyey waalidiintiisa dharka ay dadku kaga tageen doobiga inay sawirro ku galaan kadibna ay Instagram-ka dadka kula wadaagaan. arrintaasi suurtagal ma aha ayay ugu jawaabeen lamaanaha da'da ah ee doobiga iska leh. ma annaga oo da'daan ah duqnimana ku jirna ayaa sida dhalinyarada u dhaqmayna ayay ugu jawaabeen. wiilkii yaraa ayaa fikirkiisa ku adkeeyey waalidiintiisa ugu dambeynna fikirkii way la qaateen. haddaba lamaanaha sidaa ku bilaabay inay sawiradooda bartooda Instagram-ka bulshada kula wadaagaan waxaa hadda ku xiran 130,000 oo qof. wiilkooda oo ka warramaya fikirka ku dhashay ayaa waxa uu sheegay in ujeedkiisu aysan ahayn in waalidiintiisa Instagram-ka ay sawirro soo dhigaan oo ay caan noqdaan balse waxa uu ugu talagalay in ay waalidiinta ay ku caajis baxaan oo marnaba muusan filaynin in sidan dhan ay caan u noqon doonaan labadiisa waalid. ujeedada kale wiilka yar lahaa ayaa waxay ahayd dadka dharka ku ilaaway doobiga inay dharkooda ka arkaan sawirada ay waalidiintiisa soo galayaan kadibna ay soo doontaan. haddaba labada lamaane ee da'da ah markii ay si aad ah ugu soo caanbaxeen Instagram-ka majallaadka waaweyn ee fashion-ka kuwooda ugu caansan waxay bilaabeen inay sawirro ka qaataan bogagooda horena ay ku soo daabacaan. lamaanayaashan waxay sheegeen marka ay dharka noocaan ah ay xirtaan inay isu arkaan inay dhalinyaro yihiin oo ay da'doodu ay tahay 30 jir. oday Wanjai waxa uu dharmeyrida uu bilaabay isagoo 14 sano jir ah. wuxuu sheegay waagii hore in dadku dharkooda doobiga ku ilaawi jirin balse hadda maadaama dharku raqiis noqday ay ugu wacan tahay in dharka la ilaawo ayuu yiri. waan xasuustaa aniga markaan xaaskayga guursanayay si aan Suudaan ku aroos galo u iibsado waxaan iibiyey gaari dameer buuxo oo bariisa dharka markaa ayuu qiimo lahaa ayuu yiri. oday Wanjai wuxuu sheegay dadka sababta ay dharkooda doobiga ugu iloobayaan inay tahay inay dadku taajir yihiin oo ay dharka ka maarmaan ama inay dadka dharkaasi la dhinteen. labada lamaane oo da'doodu aadka u weyn tahay oo gabaldhac ku dhow ayaa sheegay inay sii wadayaan inta ay ka geeriyoonayaan inay sii wadi doonaan sawirada quruxda badan ay taageerayaashooda Instagram-ka kula wadaagaan. oo ku maasan tahay daawashadaada fadlan si aad mar walba noola socotid channel-ka subscribe noo saar. mahadsanid.